bismillaahi raxmaani raxiim kulan wanaagsan qodobada ugu muhiimsan wararka Soomaalida iyo caalamkana waxaa ka mid ah dawladda Mareykanka oo 26 milyan oo dollar ku bixinaysa heshiis Soomaaliya gaadiid dagaal loogu sameynayo shirkadda qandaraaska la siiyay iyo xog ku saabsan ayaa daawan doontaan Imaaraadka Carabta waxa ay ogolaadeen naqshad uu u tagay magaalada Abu Dhabi madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani guushaas iyo sida loogu farxi karo saameyn miyay reebi kartaa sidoo kale waa daawan doontaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Deerana amar culus ayuu bixiyay taas oo la leeyahay saameyn ay ku yeelanaysaa dhammaan hay'adaha kala duwan ee dawladda xitaa xafiiska madaxweynaha ayaa arrintan ay saameynaysaa mid ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Muqdisho oo ciidamada amnigu ay u daateen qaraxyo laga soo saaray guriga la hujuumay iyo howlgalka sida loo fuliyay cabdinaasir seeraar maax oo ka mid ahaa golaha isbedel doonka Jubbaland oo gaaray magaalada Nairobi maanta isla markaana la filayay kulan is-horfariisi ah laguna dhameynaya xasarada Jubbaland in uu la yeesho Axmed Madoobe oo kaga sii horeeyay magaalada Nairobi gaadiidkii dagaal ee dhawaan lagu xanibay dekada magaalada Boosaaso hadda waxaa laga warhelay beesha hubkaasi u socday iyo madaxda Puntland oo isku khilaafsan in baabuurta dibadda loo soo saaro muxuu madaxweyne farmaajo xildhibaan Daleys Xasan Aadan oo isku hayb yihiin uga hor istaagay safarkeedii maalmo ka hor ay ugu ambabixi lahayd magaalada Luuq Ganaane ee gobolka Gedo hanjabaada Cumar Filish oo fasiraad kala duwan loo bixiyay iyo golihii kacaanka sare oo mar kale la dareemiyay in la soo celin doono saraakiil ciidanna loo magacaabayo degmooyinka gobolka Banaadir dawladda Jabuuti loolankeeda Kenya ayay cirka sii gelisay shaacisayna war cusub oo ku saabsan tartanka ay ugu jirto kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay qodobka dibadda ugu muhiimsan aad daawan doontaan hadduu ilaahay raalli ka noqdana waxa uu yahay 15 qof oo ku dhintay qarax miino oo ka dhacay dalka Afghanistan u diyaar garooba daawadayaal saaxiibayaal wararkaas oo faahfaahsan waxaana naga daawanaysaan shabakadda wararka maanta waa khamiis taariikhda ay ku beegan tahay 28 bisha 11 ee November 2019 warkii oo fidsan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Deerana ayaa amar dulligay dhammaan hay'adaha kala duwan ee dawladda isla markaana waxa lagu sheegay amarkaas inuu saameyn ku yeelanayo xafiisyada kala duwan xitaa kan madaxweyne farmaajo qoraal ka soo baxay guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka dawladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in amarkan uu ra'iisul wasaaraha soo saaray waxaana ku saxiixan qoraalkaas gudoomiyaha guddiga Xasan Abshirow Maxamed waxaana uu ku taariikhisan yahay 4 maalin ka hor oo ah 24 bisha November waxaana lagu wargeliyay hay'adaha kala duwan ee dawladda inaysan qori karin shaqaale cusub kuwaas oo ka yimaada wasaaradaha kala duwan isla markaana yeelanaya qoonda miisaaniyadeed ama kuwa aan lahayn go'aankan ayaa waxa uu yahay mid ku meel gaar ah oo hay'adaha dawladda iyo wasaaradaha lagula socodsiinayo iyadoona la sheegay in dib laga soo sheegi doono xilliga munaasabka ah ay noqotay in dib loo bilaabi karo qorista shaqaalaha cusub go'aankan ka soo baxay guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli dhawaan miisaaniyadda 2020 golaha wasiiradu ay meel mariyeen taas oo ku kacaysa lacag gaaraysa 459.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah weli waxaad daawanaysaan shabakadda wararka maanta sida lagu qoray Defense Web majalada la yiraahdo shirkadda soo saarta gaadiidka kala duwan ee ciidanka ee lagu magacaabo Nafister ayaa waxa la siiyay mashruuc ama qandaraas ay gaadiidka dagaalka ugu sameynayso Soomaaliya 25 bisha November ayaa shirkadda Nafister la siiyay heshiis ku kacaya 26 milyan 748,087 dollar lacag gaaraysa oo ay ka heshay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka waxaana lagu sheegay heshiiskaas inuu yahay mid qiimihiisu go'an yahay shirkaddan ayaa lagula heshiiyey ciidanka Soomaaliya inay u soo saarto 2 nooc oo ah gaadiidka ciidamada oo dhexdhexaad ah iyo kuwa ganacsi ahaan loo soo saarayo heshiiska sida uu dhigayo shirkaddan ayaa laga doonayaa in ay gaadiidka qalabka dayactirka ay Soomaaliya gaarsiiso sanadka 2022 waa 3 sano hadda kadib laguna wareejiyay dawladda Soomaaliya gaadiidka la filayay in shirkaddan Soomaaliya
keento ayaa waxaa ka mid ah 7,000 MV nooca loo yaqaano oo ah kuwa qaada xamuulka dhulka ayna isticmaalaan inta badan ciidamada dowladaha adduunka. gawaaridaas la filaya in Soomaaliya la keeno ayaa waxaa ka mid ah mid si weyn u anfici doona dowladda Soomaaliya oo dagaal kula jirta ururka Al-Shabaab, waana Riigarka nooca loo yaqaano oo ah gaari la tacaali kara miinooyinka jidadka lagu aaso. gaarigan ayaa waxaa ku xiran qalab balastig ah oo lagu magacaabo improvised explosive device oo sheegaya shaqada inta aan la qaban qaraxyada iyo miinooyinka lala beegsan karo. xog la helay oo ka imaanaysa madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa xaqiijinaysa in dhawaan magaalada Muqdisho degmooyinkeeda loo magacaabi doono gudoomiyayaal inay ka noqdaan saraakiisha ciidamada qalabka sida, kuwaas oo la sheegay in ay ka socoto qaabka hubkooda iyo gawaaridooda dagaal ay ugu dhammaystirmi lahaayeen. ciidamo kala duwan oo u badan saraakiil dhalinyaro ah oo garaado lagu taxay dhawaan ayaa hoos tegi doona General Saadiq Cumar Xasan Saadiq John oo ah taliyaha booliska gobolka Banaadir, waxaana saraakiishaas loo magacaabaya gudoomiyaasha dhammaan degmooyinka caasimadda ee magaalada Xamar. taariikhda iyada iyo isqorta arrintan waxaa la leeyahay waa qorshe laga soo minguuriyey maamulkii marxuum Maxamed Siyaad Barre markii uu talada qabsanayay 22 Oktoobar sanadkii 1969, waxaana uu degmooyinka gobolka Banaadir dhammaan howlaha maamul ee dalka uu u magacaabay saraakiil military iyo booliis isugu jiray, waxaana la laalay dastuurkii dalka iyo dhammaan shuruucdii dalka sida kii xoriyatul qowlka. gobolka Banaadir waxaa isla bishii November sanadkii 1969 loo magacaabay gaashaanle sare Axmed Maxamuud Cadde oo qoor weyne lagu naanaysi jiray. haddaba waxaa xigtay oo muddo kadib la magacaabay gaashaanle sare Cismaan Maxamed Jeelle iyo gaashaanle sare Xasan Abshir Faarax oo isagana ka dambeeyey, kuwaas oo gacan bir ah ku qabtay shacabka magaalada Muqdisho. waxaa hubaala in Saadiq John iyo gudoomiyaasha gobolka Banaadir oo wata baabuurta dagaalka ee cabdibilayaasha iyo weliba hubka kala duwan la sheegay in loogu talagalay inay amniga caasimadda sugaan, waana mid saansaanteedu u muuqato soo celinta golihii kacaanka sare ee Siyaad Barre lagu xasuusan karo, taasi oo amniga magaalada Muqdisho si isbedel muuqda looga sameeyana loogu talagalay saraakiisha ciidamada in lagu safeeyo. duqa caasimadda Xamar Cumar Filish ayaana sheegay hadal maldaheed oo ahaa haddii qof dil ka geysto gudaha Muqdisho ee haddana baxsada gudoomiyaha degmadaas waxaan ka dhigaynaa sargaal ciidan oo cabdibila wata. warkaas oo soo bannaan bixiyey hadalhaynta maalmahan jirtay ee ahayd in golihii sare ee kacaanka Soomaaliyeed dib loogu laabanayo. Cabdinaasir Seeraar Maax oo ah mid ka mid ah xubnaha aadka uga soo horjeeday madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Madoobe ayaa gaaray maanta oo khamiis ahayd magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. ila ku dhow Cabdinaasir Seeraar oo ku sugan Kismaayo waxay noo sheegeen in ujeedka safarkiisa uu qayb ka yahay dardargelinta hanaanka iyo maamulka uu soo dhisayo, inkastoo warar kale ay leeyihiin waxa wada hadal laga dhex abuuraya isaga iyo weliba saaxiibkiisii hore oo ay siyaasadda ku kala tageen marna jabhadda Raas Komboni ku wada jireen ee Axmed Islaam Madoobe. Cabdinaasir Seeraar ayaa 23 Agoosto maalin kadib doorashadii Axmed Madoobe sheegtay inuu noqday madaxweynaha Jubbaland kadib taageerayaashiisa oo doorasho ay ugu qabteen magaalada Kismaayo, waxaana weli uu aaminsan yahay inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee Jubbaland. lagama hordhici karo kulanka dhex maraya Axmed Islaam Madoobe iyo Cabdinaasir Seeraar oo hadda ku wada sugan Nairobi iyo waxa ka soo bixi doona iyadoo dadaal lagu dhameynayo maadaama ay yihiin rag wada dhashay oo isku beel ah, haddana xasarada Jubbaland la dhameeyo. wili Cabdirashiid Xidig oo isagana madaxweynaha sharciga Jubbaland sheegta ayaa ku sugan magaalada Kismaayo, waxaana uu ka mid yahay qawaamuurta golaha isbedel doonka Jubbaland. qeybaha hore ayaa daawanaysaan shabakadda wararka maanta. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo maalmahan safar shaqo ku joogay magaalada Dubai ee waddanka isku tagga Imaaraadka Carabta ayaa halkaasi kula kulmay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Imaaraadka. qaybta tababarka u qaabilsan iyo taakulaynta ciidamada Puntland ee BMPF-ta. madaxweyne Dani ayaa la xaqiijiyay in mas'uuliyiinta UAE uu ku qanciyay inay sii wadaan qandaraaska shirkadda BDG oo dowladda Imaaraadka ay adeega iyo saadka u soo marin jirtay ciidanka badda ee Puntland.
dowladda imaaraadka ayaa bishii juun ee sanadkan joojisay lojistikadii ay ciidanka badda puntland u soo marin jirtay shirkaddaas PDG kadib markii uu khilaaf ba'an soo kala dhex galay saamileyda ku midaysanaa shirkadda islamarkaana uu qalqal ku yimid howlihii shirkadda. sidoo kale saraakiisha imaaraadka ee siciidani la kulmay ayaa waxa ay u ballanqaadeen dib u soo celinta arrintaas. wararku waxay intaasi ku darayaan in madaxweynuhu uu safarkiisa soo gebagabeeyey iyadoona la filayo in sabtida oo ku beegan 30 bishan uu dib ugu laaban doono magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland.